nabigu wuxuu leeyahay dadaalka aadamaha ay ku dadaalaan hantida iyo magaca siday diintooda u baabi'iso dadaalkaas iyo maal jacaylka iyo sharaf iyo magac jacaylku siday diinta ruuxa u baabi'iso laba dhurwa oo baahan xayn uma baabi'iyaan laba dhurwa oo baahan xayn uma baabi'iyaan yeeygu waxa dhurwa lagaga duwa dhurwaagu markuu ariga galo waxa laga yaabaa inuu wax ka badbaado laakiin yeeydu iyo weerku iyo hal neef intuu dhaqaaqayo uu soo dhex soconay uu laynaya dhurwaagu markuu dhowr xabbo ku fadhiiso inta kale iskaga tagaa laga yaabaa haddaan ciidan kale iyo balaayo kale oo dhurwayo badan aysan imanin laakiin di'bigu asagu waa cadow inta neef dhaqaaqayo ma daynayo macaawo dhan buu daba soconaya nabigu taas ugu shabahay laba yeey oo baahan oo xayn adhiga lagu sii daayay siday u baabi'iyaan si ka daran ayaa maalka iyo magaca iyo sumcadda ku dadaalkeedu ay diintaada u dhaawacay u baabi'inayaan maalku waa laba qaybood hadee maal xalaal ah ood ku dadaasho ururintiisii iyo ilaalintiisii iyo dhowridiisii iyo ka shaqayntiisii iyo badintiisii hadda waqti buu kaa qaadan cibaadadu buu kaa mashquulin ilaahay buu ku garab maray diinkiisii ghaaliban ilaa man raxima rabbuhu ruux ilaah ka badbaadshan mooyeene waxaa badan hanti raadinta in lagu dhumo waba hadday xalaal iyo dariiq fiican lagu raadinayo iyo in dariiq xaaraan lagu raadiyo labadan weeye labaduba marka uu si kala daran yihiin waxa badan marka in dariiqa rabbiga ay labadu ay ka weydaariyaan oo ka leexiyaan oo diinka ka mashquuliyaan رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بالاسكوغا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله بالاسكوغا وحاصدا ومركب وكل التقايات روح إلهي سبحانه وتعالى وافتشي وحق إلهي اسكر دوري الدنيا أنكو في النوبين أنكو كثومين آخر أوجه سدين مويه الدنيا مركب وعد بدنتا كدم نبي وكجور تاسو حول والشرف الجاه والسمعة والشرفت اللي الشيء مقعه ayaa ka daran magac raadinta ka daran maalka magac raadintu iyo waji raadinta iyo sumcad raadintu say u baabisay diinta ruuxa maalku ma baabiyaba bidaliil maxaa maqraatiya maalka qudhigiisa lagu bixiyaa sharaf iyo magac heshi sumayda arag kuraasada la raasay sumayda arag malaayiin niba wuxuu bixinayaa asoo kursi baarlamaan raadinay Kenya ama Soomaaliya raadinaya wuxuu ku bixinayaa maxaad tirahdeen 30 milyan maxay tahay 30 maxay tahay 300 milyan buu diyaariyay inuu ku kambayn gareeyo 300 milyan hadda haystaan ma xaramka iska degtaan maxaa idan waalahay baytullaahi alxaraam intaas ka ag fadhiisataan iyo nabi maxamed agtiisa maaba inta idinku filan intaad ka noo sheegay عمر غالب كنا هذا صدق جر أفرتن جر محايدين دم الله واتني دور سنة هدي بقى الله يدين جرسي هدي كره والله قمنا إنسان محايدين دم قبلنا عي يعني شرفت الرادين تيد وتأوجد دران صادر سلف كله جرين الزهد أشد الزهد والزهد في الرئاسة لا في المال سلف كله جرين شيء لا يسكت إلى عليه ولا الزهدي ولا قدر هذا ولا يسكت دور وحاجو قيم بدن مقعي منصبك wadaadu waxay isku leeyahay magac baa u badan duqeydu waxay isu rugayaan lafaha iyo jilbaha ibris kaga dhigan magac baa u badan qabaa'ilku waxay isku leeyahay isku baabin waxa u badan magac iyo sumcad reebel baa meesha ka taliyay maya ma annaga maya idinka oo baa socota waxaas waa magac waxaad aragteen Soomaaliya isruugayso ama siyaasiin isbaabiin hayaan ama duqey suran yihiin ama maalin walba shir iyo maqaxi laga kicilayahay maxaa lagu hayaa سلعة محبها نك وريش يلحوب من سلعة هذه هي المحسوكة يسام بالليل إن أنا مقلود يدي هيبور وكم هنيك زاد يجري موسى هزومه موسى وحيد إن أنا مقلود أيو دي شيء بعديه هي الواحد كوه يسام يتبيع مكتبك أوجه جامر يسام أنك تبيع ريح حمر مربوط شو كوب بابير واتجامين هاي سوكرم يسام وتكم حول يسام بالليل تجابين هي بنوضع حيان فيرنا يورت سيسوبا أفرت الروح ميدا ماشي لقى قاضي يبقول داوعة وركذا فانتين بيلت موصر بوشيغي واحد كويس يسار دوام حي أنا موقنيو هي موقن ميسدوي بل أوفر صدا عرفك إلى راس عصير إلى راس كمبوني أنت هل كبلاب إلى
waxa Soomaali isku haysa eega waa magac annaga ka talin laanyahan yararka sakaraadka boqolka wax loo sameeyay u kala socotaan waa magac raadin iyo waji nabigu marka runbo idin sheegay diinkiina waxa baabeenaya waa magac raadis waliba si khaldan lagu raadinayo wadiiqa nijaas ah oo khariban oo dhigi xinjiro wadadoodii lagu daadshay oon xaq la dhowraynin oon xurmo la ilaalinin oo diin la ilaalinaynin oon la ilaalinaynin shay ilaahay xurmeeyay birmagada la dhowraynin oon raxim la dhowraynin oon qaraabo la dhowrayn ma jirto nin walba inuu muuqdo hadduu doono marka ha u sii maro 5,000 2,000 oo dhimatay dagaalka dhanaayo Itoobiya dhex maray iyo Soomaaliya ee amanka ka sheekaysaan 5,000 askari baa ku dhimatay oo Soomaaliyeed 5,600 ma badnayn Soomaaliya way bumay laakiin 5,200 bay ahaayeen laba qabiil oo Soomaaliya intay iska dileen baa ka badan hee laba dawladood isku xaqantay wax dhaxmaray laba qabiil oo reer koonfureed waxay 4 bilood iska dileen baa ka badan wixii Itoobiya iyo Soomaaliya iska dileen waad garanaysaa hadda waxba aanu sheegi maayo maxaa la isku hayo inaad muuqataan Soomaaliya intuu sheegay Muuse oo Soomaaliya waxaad ku haysaan iska ilaaliya nabigu waa idin kala hadlay baasha musiibo weeye magacaas iska ilaaliya